qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya saynisyahanno ku sugan dalka Australia ayaa sharaxaad buuxda ka bixiyay qaabka uu jirka isaga difaaco ama uu ula dagaalamo cudurka COVID-19. dalka Mareykanka waxaa ka bilowday cabsi kale oo aad u weyn kadib markii uu gaaray xoonka dadka laaya kaasoo markii ugu horreysay lagu arko dalkaasi. bukaanada qaba cudurka coronavirus ayaa noloshooda lagu badbaadinayaa in xabadka loo seexiyo xilli ay sii kordhayaan kiisaska cudurka COVID-19. qodobadaasi kuwo kale ayaad ku maqli doontaan soo saarista iyo tebinta barnaamijka waa anigoo ah kulmiye mar kale iyo bandhigga dunida. cilmibaaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday qaabka uu jirka bini'aadanka isaga difaaci karo cudurka coronavirus. saynisyahanno ku sugan dalka Australia ayaa sharaxaad buuxda ka bixiyey qaabka uu jirka isaga difaaco ama uu ula dagaalamo cudurka COVID-19. cilmibaaristaasi ayaa lagu daabacay wargeyska Nature Medicine Journal ayaa muujinaysa in dadka ay uga caafimaadayaan caabuqa corona sida ay uga reestaan hargabka oo kale. ilaa iyo 4 qaybood oo ka mid ah unugyada difaaca jirka ayay sheegeen in ay durbadiiba u howlgalaan in ay la dagaalamaan fayraska islamarkaana uu jirka soo galo. khubarada ayaa sheegay in hawshan ay sidoo kale gacan ka geysan karto in si dhaqso ah loo helo tallaalka cudurkan. guud ahaan dunida waxaa la xaqiijiyey in caabuqa uu ku dhacay isku darka guud dad gaaraya 3,663,251 ruux waxaana u dhintay qiyaastii 252,749 ruux tan iyo markii uu dilaacay. Professor Catherine oo ka mid ah saynisyahanada wax ka qoray cilmibaaristan ayaa tiri xogtan shaaca laga qaaday waa muhiim sababtoo ah waa markii ugu horreysay ee aan fahmayno habka uu difaaca jirkeena ula dagaalamo fayraskan. cilmibaaristan oo lagu sameeyey xarunta Better ee magaalada Melbourne waxaa si weyn u ammaanay khubarada kale. mid ka mid ahna wuxuuba ku tilmaamay arrin culays ka qaadaysa. dad fara badan ayaa ka caafimaaday COVID-19 taasoo macnaheedu yahay in horeyba loo sii ogaa inuu difaaca jirka ku guulaysan karo dagaalka ka dhanka ah fayraska corona. laakiin markii ugu horreysay daraasadan waxaa si toos ah loogu ogaaday 4 qaybood oo ka mid ah unugyada difaaca jirka oo diyaar u noqonaya dagaalka ka dhanka ah COVID-19. waxay saynisyahanada arrintani ku ogaadeen ayagoo dabagal ku samaynaya qof bukaan ah oo uu cudurka ku dhacay kaasoo xanuuno kale aan horey u sii qabin. qofkaas ayaa ahaa haweeney 47 sano jir ah oo ka timid magaalada Wuhan ee dalka China waxayna tagtay cisbitaal ku yaala dalka Australia. Professor Catherine ayaa sheegtay in kooxdeeda ay baaritaan ku sameeyeen dhammaan unugyada difaaca ee bukaankan 3 maalmood ka hor inta aysan haweeneydan bilaabin in ay soo raysato. waxaa la arkay unugyo gaar ah oo shaqo ka dhex wada habka qulqulka dhiigeeda. professorada ayaa sidoo kale sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin natiijadan iyo xaqiiqada ah in unugyadaasi aan aqoonsanay ay ku jireen dagaalka ka dhanka ah cudurka corona. waxaana la ogaaday in unugyadaasi ay hawsha ku guda jireen ay ahayd la dagaalanka fayraska. in ka badan 10 saynisyahan ayaa muddo 4 asbuuc ah u shaqaynayay si aan kala joogsi iyo nasasho lahayn si ay daraasadan muhiimka ah ay u soo saaraan. Professor Bruce Thompson oo ah saynisyahan ka tirsan jaamacadda University of Technology ayaa sheegay in la ogaaday goorta ay unugyada difaaca jirka u istaagayaan la dagaalanka cudurka waxayna naga caawinaysaa in la ogaado qaabka uu caabuqa u shaqeeyo. Professor Thompson ayaa sidoo kale yiri marka aad ogaatid qaababka kala duwan ee ay jawaabta jirka u dhacdo waxaad saadaalin kartaa xilliga aad ka raysanayso caabuqa. wasiirka caafimaadka Australia ayaa sheegay in cilmibaaristan natiijadeeda ay gacan ka geysan karto in si dhaqso ah loo soo saaro tallaal lagula dagaalamo caabuqan. dhanka kale hay-adda caafimaadka adduunka ayaa
ayaa digniin ka soo saartay isticmaalka dawo aan la tijaabin oo looga hortago cudurka corona. sidoo kale hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in shacabka afrikaanka ay mudan yihiin in ay helaan dawooyin lasoo marsiiyey tijaabooyin habboon xitaa haddii ay ahaato dawo dhireed. hadalka hay-adda caafimaadka ayaa imaanaya kadib markii uu madaxweynaha madagaskar soo bandhigay dawo dhireed uu sheegay inay ku caafimaadayaan dadka qaba fayraska corona. ururka midooda afrika ayaa sheegay inay doonayaan oo ay hubiyaan caafimaad ahaan waxtarka iyo badqabka dawada. agaasimaha madaxtooyada madagaskar mrs lova ayaa sheegtay in ku dhowaad 20 ruux muddo 3 toddobaad lagu tijaabinayay dawadan. tallaabadaasi oo kasoo horjeeda talooyinka tijaabada dawooyinka ay soo jeedisay hay-adda caafimaadka adduunka. tijaabada dawooyinka waxaa la marsiiyaa hanaan dheer oo lagu xaqiijinayo waxtarka. ilaa 4 heer ayaa la marsiiyaa. marka hore waxaa lagu tijaabiyaa tiro ka mid ah bukaanada, waxaana marka xiga la gaarsiiyaa dadka ku nool dalkaasi oo dhan. dhowr dal oo afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Ghana, Equatoria Guinea iyo Liberia ayaa dalbaday dawo dhireedka toddobaadkii lasoo dhaafay. madaxweynaha madagaskar Andry Rajoelina wuxuu hogaamiyayaasha afrikaanka uga warbixiyey dawada uu soo saaray xilli ay ka qaybgalayeen shir muuqaal ah. kulankaasi kadib waxay soo jeediyeen in xarunta afrika ee xakamaynta cudurrada ay qaab cilmiyeysan u hubin doonto waxtarkeeda. hay-adda caafimaadka adduunka waxay soo dhoweysay waxyaabaha ikhtiraaciyada cusub ay qaaradda ku dhaqaaqday ee ku saabsan dawo dhaqameedka, balse waxay ku xiran tahay in la tijaabiyo. afrikaanku waxay mudan yihiin inay adeegsadaan dawo lasoo tijaabiyey oo la mid ah heerarka ay soo mareen dawooyinka laga isticmaalo adduunyada inteeda kale. waxay dalalka yabooheen in ka badan 8 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu soo saaro tallaal looga hortagayo cudurka covid-19 islamarkaana lagu maalgelinayo cilmibaarista ku saabsan baaritaanada iyo daweynta cudurrada. dunida waxay baadagoob ugu jirtaa sidii loo heli lahaa tallaalka cudurka corona. khubarada intooda badan waxay sheegeen in helidda tallaalka uu qaadan karo ilaa iyo bartamaha sanadka 2021. dhowr dal oo afrikaan ah waxay bilaabeen tallaabooyin ay uga hortagayaan fiditaanka cudurka corona. waxay dalalkooda kusoo rogeen xayiraado iyo bandow. waxaa la qaadayaa bandowga si dowladuhu ay isugu dheelitiraan xoojinta arrimaha caafimaadka iyo danaha dhaqaale. dabcinta xayiraadaha waxaa kusoo kordhay dadaalada degdega ah ee lagu raadinayo dawo. madagaskar waxay xaqiijisay in 150 ruux oo uu ku dhacay cudurka covid-19 balse aysan tabin cid u dhimatay cudurka sida laga soo xigtay xarunta la dagaalanka cudurrada ee afrika. madaxweynaha madagaskar wuxuu xayiraad kusoo rogay ilaa 3 magaalo oo waaweyn, balse waxaa la debciyey xayiraadaasi sida ay ku warantay amaba ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay laga helay xoonka dadka dila. dalka Mareykanka oo la daala dhacaya weerarka xanuunka coronavirus ee sida baan u saameeyay wadamada caalamka ayaa haddana waxaa ka bilowday cabsi kale oo aad u weyn kadib markii uu gaaray xoonka dadka laaya, kaasoo markii ugu horeysay lagu arko dalkaasi. xoonkan ayaa ah mid dhererkiisu uu la egyahay 2 inji oo ah mid lagu yaqaano qaaradda Aasiya. ayaa markii ugu horeysay abid lagu arkay dalka Mareykanka, gaar ahaan xeebaha dhinaca galbeed. dhowr qaniinyo oo xayawaankan uu ayay dadka u dhiman karaan. dhinaca kale wuxuu xoonkan cadowga ugu weyn ku yahay shinnida, taasoo uu ka burburiyo dhammaan meelaha ay malabka ku samaysato. ukumaha shinnida waxaa cuna xoonka yaryar ee ka mid ah haynta weerarka geysata. saynisyahanada Mareykanka ayaa hadda aad ugu mashquulsan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xoonka ka hor inta uusan baabi'inin dhammaan shinnida ku nool dalkaasi. inkastoo xoonka dilaaga ah ee Aasiya uu badanaa dadka ka weecdo, haddana qaniyadiisa ayaa la aaminsan yahay inay sanad walba disho dad ka badan 50 ruux, sida uu qoray wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka. wuxuu xayawaankan waqooyiga Ameerika markii ugu horeysay gaaray bishii Agoosto ee sanadkii 2019, xilligaasoo lagu arkay meel ka mid ah dalka Canada. jaamacadda gobolka Washington ma hubto goorta iyo qaabka uu xoonkan markii horeba uu ku tagay
joogay waqooyiga Ameerika. Laakiin dadka shinnida dhaqda ee ku nool gobolkaasi ayaa bilihii ugu dambeeyey soo tabiyey dad u dhintay siyaabo argagax leh. saynisyahanada ayaa si degdeg ah xal u raadinaya si loo badbaadiyo xayawaankan oo dhaqdhaqaaqiisa nolosha ee ugu badan sameeya xilliga guga. Todd Murray oo ah saynisyahan ka tirsan jaamacadda gobolka Washington sidoo kalena ah khabiir ku xeeldheer cayayaanka dalalka weerara ayaa yiri xoonka wuxuu ku socdaa tiro argagax leh. waa cabsi dhinaca caafimaadka ah, wuxuu si gaar ah khatar ugu sii yahay shinnida ku nool waddanka. cayayaankan ayaa la eg cabirka baabuurta yaryar ee ay caruurta ku ciyaaraan, wuxuuna leeyahay madax weyn oo jaallo ah iyo indho madow. qaybtiisa dhexe ayaa isugu jirta midabka jaallaha iyo madowga. Susan Kobi oo ah khabiir shinnida ku takhasustay oo ka tirsan jaamacadda gobolka Washington ayaa tiri waxay u muuqataa sida kartoonka bahalka loo ekaysiiyo marka aad eegto wejigooda weyn ee jaallaha ah. dhowr bilood kadib bishii Disembar ee isla sanadkaasi ayaa xayawaankan duulaya laga soo sheegay meel u dhow xadka koonfureed ee gobolka Washington. nolosha xayawaankan waxay bilaabataa bisha Abriil marka ay boqoradooda ka soo baxdo qasriga oo ay bilowdo in ay wax cunto, kadibna kuwa kale ay ku daydaan. marka ay xilliga xagaaga bartaan sida wax loo cuno, dhammaantood waxay xeryahooda uga soo baxaan si ay raashin u raadsadaan. inkastoo waxa ugu horeeya ee ay bartilmaameedsadaan uu yahay shinnida iyo malabkeeda, waxay weerari karaan dadka haddii ay khatar ka dareemaan. qaniyadooda oo dhowr jeer ah waxay dili kartaa qof kasta, xitaa dadka aan xasaasiyadda qabin. dalka Jabaan oo xayawaankan si weyn loogu yaqaano waxay sanad kasta ku dilaan qiyaastii 30 ilaa 40 ruux. Conrad Bayru oo shinni ku dhaqda jasiiradda Vancouver oo weerar kala kulmay mid ka mid ah xayawaanadaas ayaa sheegay in markii uu qaniinay uu dareemay xanuun weyn, waxayna ila ahayd sida anigoo bir kulul la igu dhejiyey oo kale. saynisyahanada jaamacadda gobolka Washington waxay xilliga guga bilaabi doonaan inay raadiyaan boqoradda xoonka si ay degdeg ugu ciribtiraan. shinnida ku nool dalka Mareykanka ayaa horeyba cadaadis ula kulmaysay intii u dhaxaysay sanadihii 1947 ilaa 2017. tiro ka mid ah boqortooyooyinka shinnida waxay hoos uga dhaceen tiradii ay horey u ahaayeen ee ahayd 6 milyan, waxayna hadda gaarayaan 2.5 milyan oo keliya. sanadkii lasoo dhaafay 2019 cilmibaarayaasha jaamacadda Maryland waxay soo tabiyeen in 40% shinnida dalkaasi ay ku dhinteen hal xilli oo qabow daran uu jiray inta u dhaxaysay sanadihii 2018 ilaa 2019, waana tiradii ugu badneed ee hal mar baaba'da. cunooyinka laga sameeyo malabka ayaa aad looga isticmaalaa Mareykanka. dhaqaalaha waddankaasina waxay sanad walba ku kordhiyaan lacag dhan 15 pound oo u dhiganta $12 sida laga soo xigtay waaxda beeraha Mareykanka. waaga guudaan waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijka bandhiga dunida oo qodobo dhowr aad ku maqasheen. soo saaristii tibintu waa anigoo kulmiya faanu dib dambe u kulmayno annagoo isku duubanaya adinkoona dhegaysanaya. waxaan idinkaga tegayaa